I love Khatama State of Somalia. It's a very good government. And for last days, أولاً أحييكم بتحية آتت من صميم فؤاد قلبي. And the best great of the Islam, that say peace of Allah be upon you. Cabdi Guray Plaza Hotel oo ka mid ah hoteelada ugu casrisan magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa waxaa lagu qabtay xaflad meeqaamkeedu sareeyo. Xafladan ballaaran ayaa waxaa soo qaban qaabiyay maamulka Khatuma State waxaana loo dhigay ardayda dhamaysatay imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee maamul goboleedka Khatuma State of Somalia iyo waliba kuwa ka baxay fasalada sideedaad. Dhammaan shacabka ku dhaqan magaalada Buuhoodle sida culimada diinta, uqaasha, ururada kala gedisan, waalidiinta iyo dhammaan ardayda ayaa goobjoog ka ahayd xafladan meeqaamkeedu sareeyay. waxaa xafladda gudagalkeedii furay maayarka degmada Buuhoodle ee maamulka Khatuma State of Somalia Kayse Maxamed Xaaji Cali wuxuuna halkaasi ka jeediyay hadal kooban wuxuuna sheegay inay furan tahay xafladaasi. ardayda ka soo qayb gashay dugsiyada sare gaar ahaan kuwa sanadkan ka qalin jabinaya ama ka qalin jabiyayba fasalada afraad ee dugsiyada sare iyo fasalada sideedaad ee dugsiyada hoose dhexe uqaasha dhalinyarada kale ururada hooyooyinka xubnaha golaha wasiirada ee hadda goobta ku sugan iyo dhammaan dadweynaha ka soo qayb galay xafladda sharafta badan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. xafladdu guud ahaan gaari waa furayoon waa inoo furan tahay si rasmi ah ayay inoogu furan tahay. wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. oday Ibrahim Maxamed Cabdi oo ka mid ah odayaal dhaqameedka deegaanada Khatuma State ayaa halkaasi ka soo jeediyay khudbad aad u macaan oo dhinacyo badan taabanaysay. waxaan salaameynaa xafladan dadkii soo qaban qaabiyay. marka labaadna waxaan jeclaan lahaa runtii marka ardayda noocaas sabtiga noocaas ardayda laga hadlaayo ka soo qaybgalayaashu inay niyad san iyo sacab ka muujiyaan baan jeclaan lahaa. marka carabka lagu dhufto ardayda muwaadiniinta ah carabka in marka lagu dhufto in qalbiga iyo sacabka iyo niyadda iyo carabkaba laga soo dhaweeyaan jeclay. ma doonayno qofku inuu iska soo fadhiyo oo kaliya oo daawado oo kaliya ma rabno. waxaan rabnaa si diiran in loo soo dhaweeyo waajibaadka ardaynimo ee ahmiyadda sare leh in lagu soo dhaweeyaan u baahannahay. annana waa ku soo dhaweynay. waxaanu u mahadnaqaynaa hanka aragtida maskaxda freshka ah ee siyaasiga ah garaadkooda caafimaadka qaba ee ay halkan ay ugu diyaar garoobeen maamul goboleedka Khatuma State of Somalia. naftii bugtay ha ishii bugtay ku bikaacso maanta Khatuma State waa maamul goboleed jira madaxweynihiisii leh wasiiradiisii leh baarlamankiisii leh wasaaradii waxbarashada aad aragtaan imtixaankii ugu horreeyay inay u fadhiisteen scholarshipkii leh jaamacadihiina hadday bilaabayaan oo gudbayaan. waxaanu u mahadnaqaynaa fikirkan dawliga ah ee nidaamsan ciddii uu ka yimi ee uu ka dhashay ee bulshada dhex keentay iyo kuwii fuliyey ee gacanta ku dhigay ee ka shaqeeyay heerkan soo gaarsiiyey intaba waanu u mahadnaqaynaa. Caaqil Hindi Maxamed Aadan oo ka mid ah uqaasha miisaanka culus ku leh deegaanada Khatuma State of Somalia ayaa codbaahiyaha qabsaday wuxuuna ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in laga go'o meel kasta oo loo hanqaltaagayo iyo waliba sidii dadka iyo dalka wax loogu qaban lahaa. wuxuuna cambaarayn dusha uga tuuray madaxweyne Faroole
uu caadaystay dhibaatada ummadda Soomaaliyeed. Bacda salaan waxaan halkan mahadnaq ballaaran uga celinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay imtixaanka ardada Khaatuma State ee lagaga qaaday manhaj ay leedahay Khaatuma State oo hoostaga dawladda federaalka Soomaaliya. Waanu aad iyo aad u soo dhaweynaa arrintaas cid kasta oo ka soo shaqaysay aad iyo aad bay u mahadsan tahay. ilaahay baa mahad iskale laakiin waan u mahad celinaynaa. waa guul weeye aad iyo aad u ballaaran oo aynu gaadhnay weeye. intaa bacdigeed waxaanu halkan uga mahad celinaynaa dawladda Turkiga ee qabatay shirka Soomaaliyeed ee ka shaqaynaysa danaha Soomaaliya ayaanu halkan mahad ballaaran uga celinaynaa iyadana. waxaan kaloo mahad celinaynaa dawladda Soomaaliya ee federaalka baanu mahad celinaynaa. aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa haddaanu nahay odayaasha Khaatuma State. aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa dawladda Soomaaliya madaxweynaheeda ra'iisul wasaaraha golaha wasiirada baarlamaanka dhammaantood waa u mahad celinaynaa. mahad ballaaran baanu haynaa. waxaanu halkan ka cambaaraynaynaa oo aanu cambaarayn u soo jeedinaynaa kuwa turunturraynaya ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda iyo qarannimadeeda kuwa turunturraynaya ayaanu halkan ka cambaaraynaynaa. waxaanu leenahay kuwaas oo dana gaara leh ka daaya turunturrada Soomaaliya. dhaba wanaagsan bay haysaa. raaca dhabada ay hayso dawladda Soomaaliyeed iyo qaranku raaca baanu leenahay. waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka Puntland Faroole aad iyo aad baanu cambaaraynaynaa isagoo turunturro ku haya Soomaaliya iyo maamulka Khaatumaba. waxaanu leenahay ka daa labadaba oo raac dadka Soomaaliyeed iyo dariiqa toosan iyo tubta jeexan raac baanu leenahay. arrintaas wixii aad ka geysataaba waa rafasho baanu leenahay. rafashada ka daa. kuwa Khaatumo ka soo jeeda ee ku tegaya magacyo kale oo aan reer Khaatumo lahayn nama matelaan. dhankay doonaanba ha ka tageen nama matelaan. waxaanu leenahay isimo dhaqameed ka mid ah isimada Soomaaliyeed kuwa ugu magaca weyn baanu leenahay. waxaanu leenahay siyaasiyiin. waxaanu leenahay dawladdiisan. kuwaas ayaana matala. cid kale oo ka tagtay ama Somaliland ama Puntland oo na matali kartaa ma jirto baanu leenahay. ardayda deegaanada Khaatuma State ee ku galay imtixaanaadka iyagu magaalada Buuhoodle ayaa halkaasi ku soo bandhigay wacdaro iyagoo khudbadana u jeediyey kuna jeediyey luuqadaha Carabiga iyo waliba Ingiriiska. fariimo culusna u diray dhigooda ku dhaqan maamulada hareeraha. ugu dambeynna ardayda ayaa si wada jira hoosta uga xariiqay inaysan ku laabanaynin magaalada Laascaanood inta ay ku jirto gacanta gumaystaha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaa farxad weyn oo anagu ku qalin jabinay magaalada Buuhoodle kana soo kacantoonay magaalada Laascaanood. hay'adda lecture aan soo akhrinayo iskoolka Moses Secondary School dhageysi habboon. I am very glad to stand here and say I will not students to have me when students other be the side but the director and the student must respect the teacher and likewise. I told my lecture here series student I want to stand here so another time. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كل عبته ديني هذا الكا maanta waxaa farxad weyn noo ah inaan kusoo qalinjabino Cabdigurey oo aanu mahadnaqayno TV-ga caalamiga ee Somali Channel oo alaaba nooga soo warama Royal TV, Somali Sat iyo Somali Channel oo aad ugu fiican dhinaca warka. maamulkayga oo maanta anagoo ah aad u yar dhinaca xagga waxbarashada maamulka Khaatuma State of Soomaaliya noo hirgelisay inaanu 20 cisho gudahood ay noogu soo dhameeyeen xagga Somaliland oo ay ilaa 20 sano ay waxba isla la'yihiin.
waxaan u faanaya inanka inuu joogo burciya hargeysa waxaan ku leeyahay anigu 20 cisho keliya ayaa imtixaankii lagu soo diyaariyey halka 20 sanana aad ku weyday adigu kuwantood baan ku leeyahay iyo dadka u shaqeeya Somaliland marka la taan u raaciyo 10 labaad anigoo musiis secretary school ayaa waxaan kugu yimid magaalada hargeysa 3 gabdhood kaliya ayaa la soo fadhiistay meesha halka aan 2 gabdhood kaliya kaaga badiyay oo aan koof ku qaaday dhinaca waxbarashada laakiin iskoolka aad sheegatay iskoolka ugu weyn oo hargeysa ayaa Muuse Yusuf oo aad ku tiri dhinaca waxbarashada ku liidataa ayaa kaaga badiyay magaalada hargeysa oo waliba homekaagiya dhinaca daan ka soo laabtay dhinaca inanka yaroo hargeysa burciya ciyaalada yaroo jooga iyo dadka waaweyn oo dadka ku haysta dhulkooda iyo meelaha ay degan yihiin ku yimaasada labada qof labada بتحية آتت من سميم فؤاد قلبي تحية لو رفعت إلى السماء لكانت قمرا منيرا تحية أحلى من العسل وأشد من الحبل وأثقل من الجبل ألا وهي السلام الله تعالى وبركاته. أما بعد فرحان أنت كسوق الدول هدانو نهي أرضنا كتل القبل كسول عنه منهن أرضي وكلا غادو موسى يوسف يو نقال لكن waxaanu nahay arday khaatimo waxaanu si mowqif leh u diidnay imtixaanka Somaliland ama SNM waxaanu go'aan cad ku qaadanay in aanu taageerno hadalkii ka soo yeeray dhammaan waxgaradka reer khaatimo ama waxgaradka daga gobolada SSC Sool Sanaag Ancayn inta markaan ka soo gudbo waxaanu halkan u nimid ma aha imtixaan qura hadday dadkan naga soo horjeeda u malaynayaan in aanu u aadnay imtixaan berrina ku noqonayno Sool annagu halkan imtixaan qura umaanu iman waxaanu u nimid maamul baanu dhisannay maamulka aanu dhisannay ee cagaha loo taagay in aanu waxaan ku taabino oo aan sii dhaqaajino hadday tahay difaaca dalka hadday tahay dhismaha dalka hadday tahay horumarka deegaanada iyo dhulka gobolada SSC waxaan u malaynayaa in ay dad badan ka fekerayaan ama ay isleeyihiin waxaad xidhi doontaan arday intay ka baxday gobolka Sool berri ku soo laaban doontaa laakiin si anagu waxaanu leenahay gobolka Sool waxaanu ku laabanaynaa isagoo xora haddaad isleeyihiin waxaad difaacaya haddaad isweydiinaysaan gobolka Sool yaa xoraynaya gobolka Sool waxa xoraynaya waa annaga waxa doonaya horumarkiisana waa annaga waxaanu bilaabaynaa ama aanu haddaba u taaganahay hadduu noo dhammaaday imtixaankii secondary waanu ka qalin jabinay waanu dhammaysanay maadaama aanu dhammaysanay waxbarashadii secondary-ga waxaa noo hadhay hawshii ay hayeen odayaasha oo ahayd dhismaha dalka ama dhismaha gobolada SSC oo ay u taagnaayeen from 2 ilaa 7-kayga ilaa iyo maanta waxa aan ballan ku qaadayaa inaan hawsha ka hanto waxaan kaloo ballan ka qaadayaa saaxiibadayda ay hor fadhiya rag iyo dumarba in ay hawsha ay ku taageersan yihiin igana qayb qaadanayaan hadday tahay garab iyo hadday tahay gaasaan Muslim, I start my speech in the name of Allah, the most merciful and the most gracious. Second, I am greeting all of you. And the best degree of the Islam that say peace of Allah be upon you. Be upon you too. And inta kadib maanta waxaa farxad noo ah annagoo ah ardaydii ka soo kacagsantay ka soo injineertay gobolka Sool magaalada Meesalaas aanood in aan kaga qalin jabino horta waa marka koobaad aan helno fikirkaygii ugu horeeyay ama hamigii koobaad ee ahaa in aan galno imtixaanaad uu soo diyaariyay maamul goboleedkayga Khaatimo State of Soomaaliya
habsami ah ama si farxad ku jirto markii hore noogu bilaabmay markii dambena noogu dhamaaday waxaan mar labaad farxad noo ah in aanu maanta taagannahay hoolka weynaaye Axmed Cabdi Gurey Balaasa oo aanu taagannahay maalintii qalinjabinteeda ama xiritaanka examinationka dawladdeeda Khaatumo State of Soomaaliya inta kadib waxaan si gaar ah ugu hambalyeelayaa gebi ahaanba bulshaweynta ama shacabweynaha reer Cayn gaar ahaan reer Buuhoodle hadday tahay ururada bulshada hooyooyinka dhalinyarada saxaafadda iyo gebi ahaanba culimadiinka cuqaasha hooyooyinka abayaasha dhammaantiinba waxaan idin leeyahay alif mabruuk kun jeer hambalyo ma gudi karayno abaalkaad noo gasheen annagu maanta waxaan bartan u taagannahay soo gabagabayntii ama soo xuritaankii examinationka dawladdeeda horta marka koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadcelinaynaa wasaaradda arrimaha bulshada gaar ahaan agaasimaha waaxda waxbarashada Kaysa Cawl Ladan inta kadib waxaan doonaynaa caawa in aan si gaar ah ugu hambalyeeyno dadka annaga meelaha gaarka ama buntiyada gaarka naga yaala oo uu ka yahay ururka dhalinyarada haweenka ee Suras iyo gebi ahaanba saxaafadda oo iyadu si aan qabla'aana looga qabtirtay inta kadib qaar ka mid ah ardayda gobolka Cayn ayaa dhankooda madashaasi ka hadlay waxayna halkaasi ku soo bandhigeen hadal murtiyeed aad ay ula dhaceen dhammaan bulshadii ka soo qayb gashay xafladan ballaaran ardayda waxaan leeyahay ma inaan qalin jabin waynu qalin qaadan haddii aynu foonforada maadaama ay tacliinta aynu ognahay heerka ay gaadhsiisan tahay iyo inaan oran waynu qalin jabinay aynu u fahanno inaynu salaanka waxbarashada cagta saaray oo aynu hadda qalin qaadanay isla markaana aan sii wadno oo ku sii dheeraan waxbarashadeenna shacabka reer Khaatumo isaga waxaan leeyahay berigii hore ee dadku reer guuraaga ahaa oo waxaa jiri jirtay dadku waxay akhrisan jireen wax la yidhaahdo allabari sannadlaha allabarigaa sannadlaha qur'aan baa la akhriyi jiray casharaa la tufan jiray culimaa la qaban jiray digri baa la akhriyi jiray maalinta dambe allabariga sannadlaha ay soo galay markuu soo galay waa culimmadii o dhan la isugu yeedhay geed baa loo waabay meel baa la fadhiisiyey culimmadii oo meel qur'aanka akhriyaysa iyo digriga casharkii tufaysa baa nin acraabi u yimi markaasuu nimanka hawsha wada yidhi wadaadada ha laygu daro akhriyaya qur'aanka iyo digriga markaasaa la war wadaadadu qur'aan bay akhriyayaane adigu dee qur'aan ma taqaanidi joog markaasuu war waan aqaanaayo walwal aan aqaanaayo ha laygu daro wadaadada markaasaa la yidhi war yaasiinkaa la akhriyaya 12 jeer yaasiin kale maad gaadhin bal inoo yara kaadi markaasuu war waxaan ka codsanayaa anna inaydan wadaadada iga reebin walwalana qur'aanka ka reebin aa waddada igu dartaan markaa shacabka reer Khaatumo waxaan leeyahay maamulkiina maamulada aan ka reebina idinkuna shacabka iska reebina ee isbarbar taaga qolada ha midhaafto iyadana kalmad baan leeyahay kalmadda aan leeyahay waxay tahay beri baa wakhtigii hore waxaa jiri jiray odayl kala markaaba wuxuu qabay islaam buu qabay islaantaas uu qabay baa waxay u kala jirtay hilibka sida aynu wada ogsoonnahayna caaniha hilibka baa la cuni jiray wakhtiyadii hore kadibna intay hilibka u kariso oo ay u calaaliso afkeeda ugu calaaliso bay siin jirtay markaasuu iska cuni jiray isagoo ilkalaantan uu ku dhashay markaa wuxuu yaqaanay hilibkuba inuu noocna dhamo baryihii dambay dhimatay markay dhimatay xabaasheeda dul fadhiistay war xabaasha kama dulkacaya buu yidhi naftaydii baa ku jirta buu yidhi oo cid waxay siisaba heli maaye adigu wuxuu barya jooga iska samray islaan kale guursaday islaanta kale hilibkii bay u karisay way u tuntay mooyay ugu tuntay hilibkii oo ay jecesay u tuntay xoogaa geedaa iyo milix ugu dartay oo dhadhan leh bay siisay markii ay siisay uu maalinta dambe xaabo soo gura xaabo markaasuu tii hore xabaasheedii baan gubayaa oo maxaad u gubi baa layidhi warnaagtana cadow ee ahayd waxayga iyo waxeediiba yadaa cuntay
sidaa daraaddeed baan u gubayaa wiil xamaasheeda waxaa leeyahay qolada ha midhaafto war nimanka aad la joogtaan ee aad u shaqaystaan wixiinnii iyo waxoodiiba iyagaa cunay waxaan dhadhamma lahay oo dheecaanka ka laasteen ba idin siiyeene ku soo bira maamulkiinna baa idin hay dheecaama shifana miday ku jirteen The students of secondary school and the students from Las Hanala. I would like to thank the leader of the students, Abdirrahim Sulaiman Farah. And I would like to thank the parents and the other students. I go to a secondary school and I am very sorry of the people that are running away from their country because of Somali Deed. I would like to thank lots of people like the wazirs and the president. I love Khatama State of Somalia. It's a very good government. If Allah says in the future will be the biggest government in Somalia. If we defeat Puntland and Somali Deed, we will be the best government in the universe. I would like to thank all parents and all other people in other countries that love Bulbanta. I go to a secondary school and thank all the teachers and the principal, Sheikh Mukhtar, and all other people. agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Khaatuma State of Somalia Maxamuud Sheekh Umar ayaa dhankiisa ka hadlay arrimo dhowra. aan dhammaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan kaloo salaamayaa ummadda reer Khaatumo meel kasta ay ku sugan tahay anoo Ilaahay uga baryay inuu nabadgeliyo iyo naxariis ku siiyo waxaan si gaar ah u salaamayaa ardayda ka soo qaxday ka soo barakacday meesha ay ka jirto cunsuriyadda Soomaaliland ay haysato SNM gobolka Sool ka soo barakacday baan u hambalyeeyaa sida sharafta leh iyo wanaagga iyo waddanida ay geysteen waxaan aad ugu hambalyeeyaa wasaaradda waxbarashada sida degdegga ugu diyaarisay ugana qaaday imtixaankii koonfurada iyo fasalka sideedaadba aad baan ugu hambalyeeyaa mas-uuliyiinteeda intaa marka aan ka gudbo ardayda tan sida aynu ka warhayno maamulka cunsuriyadda ah ee ka jira meeshaas Hargeysa waxa uu dadkii ay ka yimaadeen iyo waalidkii ku haya cagajuglayn badan iyo dhibaatooyin iyo baaritaan iyo iyaga oo la raadinayo waxaanu adduunka u sheegaynaa jimciyadda quruumaha ka dhexaysa iyo midowga Afrika iyo laamaha kala duwan ee u hadla xuquuqul insaanka ummadda Soomaaliyeed dawladda safka hore ee IGAD dhammaan waxaanu u sheegaynaa ummaddaas in waxa lagu haystaa ay tahay xuquuqdoodii oo loo diidan yahay iyo rabitaankoodii oo loo diidan yahay wixii dhibaato ee loo geystana ay mas'uul ka noqon doonto ama laaluushay ka qaadan ha noqoto ama dadka waalidku ay dhibaan ha noqoto ama iyagu ay qaar helaan ha noqoto in wixii dhibaha ay u geystaan inuu mas'uulka yahay dhiiggacabka Siiraayo ee ku sugan ciidamadiisu ay ku sugan yihiin meesha la yidhaahdo Sool marka aan intaa ka gudbo waxaan u malaynayaa caawa يعني waxaa sharafta koowaad inoo ah in oo wax Ilaahay loogu xamdiyaa in aynu maanta golayaasha ummadda Soomaaliyeed inagoo xor ah oo aan maamul kale parasite ku ahayn oo ku hoos noolayn aynu fadhino oo maamulkii Khaatumo iyo dhaqankeediiba ay ummadda Soomaaliyeed meesha looga talinayo fadhiyaan Ilaahay mahadi weey Abdirrahim Sulaiman Farah oo ku hadlayay afka dugsiyada sare ee deegaanada Khaatuma State ayaa fariimo muhiim ah u diray dhankiisa dhammaan shacabka Khaatuma State ardayda Khaatumo iyo waliba maamulkaba qaab kaliya waxbarashada lagu horumarin karaan oo iyadoo la iskaashado iyadoo waxbarasho bilaash la bixiyo iyadoo ninba waxa uu yaqaan oo dadka badan marka waxaan ugu baaqayaa ardayda inay marka hore iyagu ay ogaadaan inay mas'uuliyad ka saaran tahay sidii dadka jahliga looga saari lahaa ardayda taasaan ugu baaqayaa waxaan kaloo ugu baaqayaa siba ardayda foonfoorada ee sanadka baxaysa waxaan ugu baaqayaa in ay iyagoo deegaanadooda isku xidhan ka tagaan in ardayda laga tegayo ee dhulka laga tegayo ee deegaanada laga tegayo in iyagoo isku xidh buuxa leh oo magaca guud leh oo isku xidhan oo wada shaqeeya
inaanu ka tagno waxaan filaya waxaa inoogu hadhay ee aynu jaamacadaheenna inooga hadhay waa bisha fasaxa iyo bisha kaloo bixitaanka eliya arday haddaan intaa kaga baxo maamulka khaatumo iyo sida Soomaaliya horta markii hore waxaan uga hambalyeynaa guusha taariikhiga ah ee uu gaadhay ee muddada kooban uu ku gaadhay ee waxa la arag aan la maqal uu dhigay taa imtixaanka kowka waxaan leeyahay sida aynu ognahay maamulada la midka ah ee maanta la tartamaya 10 sano iyo 9 sano ku qaadatay inay imtixaan centralized qaadaan maamulkeena maxay ku qaadatay 20 cisho kaliya ku qaadatay 4 bilood kuma qaadan way bii hore qaladooda ma jiro 20 maalmood kaliya ku qaadatay guud ahaan bulshada reer Khaatumo meel kasta ay joogto erigaasina waxa weeye maanta dayax baa inoo iftiimay dawlad baynu samaysanay waad aragtaan 20 cisho kaliya waxaan ku samaysanay imtixaan centralized oo ka maanta London iyo Washington lagu qaado aan ka hooseynin oo la leefalo oo la aqoona waxaanu ogeyn imtixaankaasi tayada uu lahaa adkaantiisii cilmiga ku dheehnaa sida khibradaysan loo soo dhigay waxaanu ogeyn maamulkeenu muddo kooban oo 4 bilooda siyaasadda arrimaha dibadda waxa uu ka qabtay baynu ognahay in maamulo fara badan meelaha ku jira inuu ka saaray baynu ognahay inuu meel walba ka riixay baynu ognahay in maamulada kale iminka buufisba qaadeen oo isnaceen baynu ognahay in maamul walba ay sirjiin baynu ognahay marka maamulkeena bulshada waxaan ugu baaqayaa in hiil iyo hool loo noqdo inaan waxba laga sheegin 4 bilood kaliya waxa uu ku xaqiijiyay 40 sano lagu xaqiijiyay marka waxaan leeyahay marka dhaliisha imanaya yaa loo fiirsanin maamulka xumaantiisa wax xumaana ma laha laakiin wax badan waxa jirta aan iska filanaysan isleeyahay maalqabto sidoo kale qaar kamid ah ganacsatada gobolka Cayn ayaa iyaguna madashaasi ka hadlay xafladan xiritaanka imtixaanka ardada Khaatumo ka qalin jabisay foonfoorka iyo aydharka ayaan salaamayaa qaybaha dhammaan bulshada ay kala yihiin dhammaan waan salaamayaa waxaan runtii si gaar ah u salaamayaa ardayda ka timi Sool iyo Sanaag si gaar ah ayaan u salaamayaa waxaan u sheegayaa bulshada Khaatumo gaar ahaan gobolka Cayn runtii ardadaas tiil weyn bayna gelisay run ahaantii waxa ay qaadatay tallaabadii annaga aan waajibka u lahayn in aanu qaadanno ayay run ahaantii qaadatay ardadaasi run ahaantiina waxaa laga doonayaa dhammaan ummadda Khaatumo in ay tallaabadaa qaado oo taageerto waa midii dadka laga rabay waaweyn dadka iyaga waaweyn hadda dee dhammaan dhalinyaradu carabka ku dhufanaysa ay leedahay dhulkaasay midhaasayaan haweenka gobolka Cayn ayaa dhankooda halkaasi khudbada ka jeediyay iyagoo halkaasina ku soo bandhigay buraanburo aad u cajiiba xafladan sharafta badan leh ee lagu maamuusayo ardada Sool ee ka timi gumaystaha damiirkoodu iyo aqoontooda iyo caqligooda uu siiyey in ay inay ka fogeeyaan ayaa mahad iska leh waxaa mahad iska leh ilaahayga weyne waaxidka ah waxaan leeyahay madaxda Khaatumo waxaan u dirayaa salaam aad iyo aad u qiimo badan madaxdayada Khaatumo ilaahay waxaan uga baryaa inuu ilaahay kor ka dhigo waxaan ardaydaasi ay noqon doontaa mid ku jirta buugga Khaatumo ee ah taariikhiga ah ee u dhiganta dhalinyaradii SYL sida ay taariikhda u leedahay buugga Khaatumo ayay u gali doonaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh isteed Khaatumo ilaah bayno aqbalay isteed Khaatumo ilaah bayno aqbalay war waxaa aasaasay ragane xashaqoon waxaa aasaasay ragane xashaqoon ehelu khayr iyo wadaada u diin akhriye ehelu khayr iyo wadaada u diin akhriyey indheer garad iyo garada isha u fadhiya ilmaareer iyo diira iswadayday
ilmaadeeruliyo diira iswadaayiday waxaana aasaasay rabaane xashadaqo waxaa aasaasay rabaane xashadaqoon adduunka oo dhammina waa wada aqoonsan yahay adduunka oo dhammina waa wada aqoonsan yahay ummadda soomaaliyeed baanu ehelanaa ummadda soomaaliyeed baanu ehelanaay ilwaadow calankayaga wow adeeganaa ilwaadow calankayaga wow adeegaynaa ilwaadow calankayaga wow adeegaynaa arliga waa beeraynaa ciidayada udgoon eexan ma inoo midniman ololeynaynaa arliga waa beeranaa ciidayada udgoon eexan ma inoo midniman ololeynaynaa nabad aslaaxdiyo ilaa waayatiinasiib nabad aslaaxdiyo ilaa waayatiinasiib israac soomaaliyeed baan ololeynaynaa ilwaadow calankayaan ololeynaynaa nabad aslaaxdiyo ilaa waayatiinasiib gudoomiyaha gobolka Cayn ee maamulka Khaatumo State of Somalia Cabdiraxmaan Maxamed Axmed ayaa isna madashaasi ka hadlay wuxuuna ka warbixiyay guulaha ballaaran ee uu ku talaabsaday maamulka Khaatumo State of Somalia. taasina waxay tahay waa la fahansan yahay oo malihi lama fahansana laakiin waa mid aad maaragtay u xeel dheer oo tusaysa maalintii koowaad ama imtixaan xidhiddii koowaad ee maamulka Khaatumo State of Somalia uu u xidhay imtixaankii ugu horreeyey ee uu ka qaaday ardada hoos timaada maamulka Khaatumo ee ardada Khaatumo ee gobollada Sool iyo Sanaag iyo Cayn maadaama uu yahay maamulku mid curdan ah ama dhalinyar si ma garanaysaa xawli ana ku shaqaynaya isagoo muddo badan aan jirin ilaa 4 bilood iyo wax yar jiray waa imtixaankii koowaad ee ku guulaystay iyadoo maamulada hareeraha ka xiga ay ma garanaysaa in badan hawsha ay ku qaadan jirtay ama sanawaad badan ay ku qaadan jirtay allaha noo suurtageliyay arrintaas marka ugu horeysa mahad leh mar labaad waxaa mahad leh oo mahadda alla ka bacdi leh maamulka iyo madaxda ka soo shaqaysay arrintaa iyo aqoon-yahanada Khaatumo State of Somalia ka soo shaqeeyay arrintaa dhiirigeliyey ee u guntaday in ardadooda iyo awlaadooda ciriiriga aqoonta ay kaga jirto inay horumar ku sameeyaan oo kala dhex baxaan maamulada hoos u dhigay horumarka ummadda ama bulshada gobollada SSC ama gobollada Khaatumo State of Somalia ay mas'uulka ka tahay maamulada hoos u dhigay ciriiri geliyey horumarkooda inay kala dhex baxaan maamulka aqoon-yahanada arrintaas soo diyaariyey aad ay ugu mahadsan yihiin iyadoo ay habboonayd haddeer ka hor in hawshaa loo istaago oo loo qumo iyadoo ay habboonayd haddeerna kolley qof waliba ama ummad waliba mar unbay kolley ma garanaysaa ay wax samaysataa innagu waxaynu mar walba diyaar u ahayd waaynu isku ilownay isu baadidoonkii iyo isu keenitaankii Soomaaliya ayaynu isku ilownay sidaa daraaddeed ma aha oo lama odhan karo ummadda Khaatumo State way ka aqoon yar yihiin ama way ka ahmiyad hooseeyaan ummadaha kale iyo maamulada kale ee Soomaaliya ka dhisan lama odhan karo muhiimaddu waxa weeye inagu waxaynu caan ku nahay oo aynu kaga horreynay ummadaha ma garanaysaa ama bulshooyinka Soomaaliya midnimada Soomaaliya ayaynu kaga horreynay oo in badan oo ummadda Soomaaliya gumaysi kala duwan u haystay aynu ma garanaysaa ku luminay nafteennii iyo maalkeenniiba inaynu raadinno ummad Soomaaliyeed oo mid ah oo ma garanaysaa isku xidhan inaynu raadinno ayaynu ummadaha kale kaga duwanayn sidaa daraaddeed baynu waxaynu kaga habsaanay inaynu dadkeena gaarkaa eegno raadinta ummadda Soomaaliyeed ayaynu kaga habsaanay Yaasiin Axmed Sulub wasiirka arrimaha gudaha maamulka Khaatumo State of Somalia
oo soo afmeeray gabagabadii xafladdaasi ayaa waxa uu ka warbixiyey arrimo dhowra sidoo kalena waxa uu sheegay inay talan qaran ka yeelan doonaan ardayda deegaanada Khaatumo State ee ka soo baxsaday gacanta gumaystaha. haweenka culimada ganacsatada aad baan idin salaamaya waad ku mahadsantihiin sida sharafta leh aad uga soo qayb gasheen martiqaadkii laydinka fidiyey inaad ka soo qayb gashaan munaasibadan aynu ku soo khatibayno imtixaankii secondaryga iyo intermediate-ka fasalka afraad iyo fasalka sideedaad ee dhalinyarada reer Khaatumo ee ka kala timid magaalooyin badan oo ka tirsan magaalooyinka Khaatumo iyo meelo ka mid ah Puntland iyo Soomaaliland. waxaan mahad u soo jeedinayaa reer Cayn sida ay u soo dhaweeyeen isugu xilqaameen ardada ka kala timid meelaha aan magacaabay aad baad ugu mahadsantihiin. waxaan iyagana aan ku soo dhaweynayaa gobolka Cayn oo ku hadlaya afka maamulka Khaatumo dhalinyarada ka kala timid meelaha aan tilmaamay iyagoo yimid gurigoodii meel kasta ka yimaadeen iyagoo u soo maray rafaad badan sidii ay ku iman lahaayeen meesha ay caawa joogaan oo leh dhuumasho oo leh lug ay qaar soo lugeeyeen oo ay ku cadilmeen xataa baabuurta ay wadeen ama dhiiri ha noqoto ama ha noqoto ay baabuurta ka xumaadeen meelo badan oo jidka ka mid ah oo aan intaa annaga lafteedu ka martirgaraynayn barba meesha ay joogaan rafaadka ay u soo mareen oo ay u dulqaateen inay imtixaanka ay maamulkooda u dejiyey ka qayb qaataan aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. imtixaanadan ma aha keliya halkan faa'iidada ay imtixaanadu loo leeyihiin yani imaatikiina halkan aad timaadeen ma aha keliya imtixaanka oo aad gasheen oo aad ku guulaysateen number one taasaa horta ugu weyn inaad ku guulaysataan inaad ka qayb gashaan imtixaankii uu idiin soo sameeyey maamulkiinu oo jiray 4 bilood iyo week markaad gelaysaan 4 bilood 7 casho jiray. waxaa kaloo meesha ku jirta in aad timaadeen deegaano aad leedihiin oo aydan horay u arag oo aad isbarateen ardadii kale ee deegaanada aad timaadeena idinkoo weliba bartay deegaankan aad timaadeen oo haddii wax laydinka weydiiyo sheegi ka hadli karaya sida iminka ay Buuhoodle oo kale intay la eg tahay meesha ay ku taala ama meel hoose ama meel sare waa part of your study way lafteeda waxbarashadiina ay ka mid tahay lafteeda markaad baxaysaan tegaysaan dhulka aad tegaysaan xataa xagga geography-ga way maaragtay ka caawinaysaa lafteedu waa faa'iido kale. imtixaankan wuxuu noqonayaa mid taariikhi ah oo la qabanayo xafladan maanta ay caawa aynu halkan ugu dabaaldegayno oo la qaban doono maalin walba waxaan u jeedaa sanad walba bisha May 28-keedii oo lagu muujinayo maalintii lagu guulaystay imtixaanka Khaatumo ay qaaday ugu horreeyay centralized-ka ahaa waa munaasabad dhici doonta sanad walba maaha caawa xafladda aynu dhigaynaa waa tii 28-ka bisha taasaa maalin walba aynu dhigi doonto dabaaldegka meel walba oo Khaatumo waxaynu ka warhaynaa imtixaanadii hore ay geli jirteen ama ha noqoto mid ay qaadi jireen Puntland ama Somaliland deeqda waxbarasho ee la bixiyo aad iyo aad bay ugu yaraayeen ardada reer Khaatumo inay wax ka helaan ama hadday xataa helaan dhibcaha ay loo baahan yahay in lagu helo scholarship lama sii jirin inta ay xaqa u leeyihiin. sanadkii ugu dambeeyey for example haddaan ka soo qaado Puntland 137 arday ayaa scholarship heshay 7 arday bay ku lahaayeen ummadda reer Khaatumo ee markaa ka tirsanayd Puntland. tan iminka aynu qaadayno imtixaanka aynu qaadnay waa imtixaan qof waliba oo ka qayb qaatay uu helayo wixii boondooyinka uu helay isagu points oo la yimaado ayuu xuquuqdiisa ku helaya. waa imtixaan
ay shahaadadiisa bixinayso dowladda federaalka oo ay ku bixinayso magaca khaatumo oo maakshiidka iyo waxay u bixinaya khaatumo waxaan markaa wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay taxadir weyn ay ka samaynaysaa in ardayga hela dhibcihii lagu heli jiray scholarshipka uu ka qayb qaato ee aan la odhan kana hebel iyo kana khaatuma أنا هذه أبوك صاحي من أتلي دونتان بحين ودسين دوان إلى كوب الاستماع بشدة بديش عن أبن هاي لوكا خاطمو مغان حطيت هاي مقالوي اللي حطيت هاي دلت لوكا سنبا إن مال ما حشمتها أي صار نقول دونا وقعنا هنا بصولي دونا هذه لا هي نوقف دونا الله wadada halkan inoo hor fadhida ee ka timid gobolka Sool cadoono badan oo ay sameeyeen oo ay kaga horjeedaan maamulka ku haya xaqdarrada iyo khaladka ku fadhiya xuquuqdoodii ay lahaayeen banaani duudsiyey cadoonada ay ku sameeyeen ee qaar ku dhinteen ee qaar ku dhaawacmeen ee qaar lagu xidhay waanu maqlaynay codkiina idinka oo jooga laascaanood adduunka oo dhan waa laga maqlayay waanu idinku hambalyeynayna waxyaabaha aad ka geysateen ee geesinimada leh aad ka kacdeen waxaanu rajaynaynaa one day haddii ilaahay idimo idinkoo aan cid idinku xukumaynin oo idinku aad isxukumaysaan inaad joogi doontaan oo maamulkiinu idinku talin doono xafladan ballaaran ayaa waxay ku soo idlaatay jawi aad u wanaagsan waxayna soconaysay muddo ku dhow 3 saacadood. Axmed Cabdiqaadir Jabaan Axmed Darwiish TV magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn.